cashirkeena galabta insha Allah hadii la yiraahdo wuxuu ku saabsan yahay ereyo hal ama labo ama wax ka badan tusaalahan iska soo qaadanayna insha Allah marka dhageysi haboon waa hal iyo mufrad ama waxaan dhahaynaa jamac iyo mufrad ama waa mufrad iyo jamac kan kolkii la yiraahdo mufrad ama hal kan kolkii la dhahana labo iyo wixii ka badan ayay noqonaysaa insha Allah marka kan waxa uu talagalay dadka bilowga ah ee rabaan inay ereyga fahmaan su'aaladan ku dhahada bad hadaan ku yiraahdo pad talo waxa laga wada shimbir noocee inaad tiraahdo laga yaabo magaca shimbir oo dhan ayaa waxa la yiraahdaa pad marka halkan waxa ku arkaysaa hal sawir oo hal shimbir ah ayaad arkaysaa halkan waxaa arki kartaa hal sawir oo hal sariir ah ama hal qol ah tusaalaan dhahaynaa marka aan dhahaynaa waa hal qol ama hal sariir aan dhahaynaa marka waa singular and plural bodies waa hal ilaahay ku roonayay shimbir hal shimbir oo kaligeeda shimbir ayaan dhahaynaa bodies waa laba shimbirood iyo wax ka badan room waa hal qol rooms haddii la dhahana waa laba qol iyo wax ka badan camel haddii la yidhaha waa hal neef oo geela camels haddii la yidhaha esta lagu daro waxay noqon labo iyo wax ka badan desk miss desks maxay noqotay labo iyo wixii ka badanba waa dhihi kartaa doll waxa weeye waxaan ilmuhu ku ciyaaraan ee la yidhaahdo bombalo doll waa bombalaha ilmuhu ku ciyaaraan ee ciyaalka u eg maxaa la dhahaa dolls waxay ku tusinaysaa marka inaynu hal inaan u fahanno aan rabno waxan marka tusaale ek waa hal ukuna ekis maxay noqdeen labo iyo wax ka badan flower waa hal xabo ubaxa flowers waa ubaxyo badan ayaan dhahaynaa waa garanay waxaa halkan noogu qoran fork waa hal fargeetadan raashinka inta badan weli baastada loo isticmaalo ayaa waxaa la yidhaahdaa fork hal fargeeto forks waa labo iyo wixii ka badan waa garanay giraffe waa hal geriya giraffes waa maxaan ku idhaahdaaye hal iyo wixii labo iyo wixii ka badan giraffes kolkii la yidhaahdo giraffes waxay noqon labo iyo wixii ka badan it means inay ka badan yihiin giraffyadu hal ama gerigu hal ka badan yahay ee laba ka badan yahay labo iyo wixii ka badan inuu yahay ku tusinaysaa waa garanay lamb ilmaha yaree baraarka ayaa waxaa la yidhaahdaa lab baraar baan u naqaanaa baraarka dhadig iyo lab kolkii la isku daraa waxaa la yidhaha lam inaguna maxaan idhahnaa baraar nail iyo wan ay kala noqonayaan marka kale lambs ay noqonayaan iyaguna waa garanay net waa hal buul shimbireed ayaan dhahaynaa hal buul shimbireed net shimbirtu geeday wax aqli badan geeday aruurisaa iyo doog iyo caws kadib ilmaheeday guri uga dhistaa bannaan ma dhigta ilmaheeda inta badan nest kolkii la yidhaahdo nest waa buulka shimbirta sidanuuna inta badan u samaysan yahay maadaama qaabo badan ay u samayso qaabkii nets waa labo iyo wixii ka badan pen hal qalin pens qalimaan maxaa qalimaan salaan oo kale waxaad aragtay hal nin oo wata camero markaasaa waxaa leeyahay photo sawir qaade photographer bay noqon kolkaa sawir qaade laakiin photo haddii la yidhaahdo waa hal sawir photos haddii la yidhaahdana waa labo iyo wixii ka badan waa garanay shat waa hal shati shatis waa shatiya badan labo iyo wixii ka badan waxaa dhahaynaa spoon qaado spoons waa qaadooyin marka kan waxaa ugu talagalay insha Allah dadka bilowga qofku waa ka faa'iideysan karaa maalin walba haddaad ugu yaraan 5-6 erey aad baratid
waxaa hubaal ah inaad marka dambe si fiican aad uga aflixi doonto. hal mar haddaan ku celino singular and plural waa mufrad iyo jamac. bird waa hal shimbir, birds waa shimbiro badan aan dhahayna laba iyo wixii ka badan. room hal qol, rooms laba qol iyo wixii ka badan. camel hal geela ama hal neef oo geela, camels labo iyo wixii ka badan. one desk, deski dheh hal miis, deskis labo iyo wixii ka badan. dool waa hal bombalo, bombala yarkii ciyaalku ku ciyaaraan. dolls labo iyo wixii ka badan ayaan dhahaynaa. egg waa hal ukun, eggs waxaan dhahaynaa waa laba xabo iyo wixii ka badan. flower hal xabo ubaxa, flowers ayaan dhahaynaa laba xabo iyo wixii ka badan. fork waa fargeeto, fork aad ugu dhawaaqi, forki maaha, fork haddii aartu waa silent. fox waa labo iyo wixii ka badan. giraffe hal xabo geriya, giraffes waa labo iyo wixii ka badan. giraffes labo iyo wixii ka badan ayaan dhahaynaa. laba iyo wixii ka badan ayaan giraffes dhahaynaa. lamb waa baraar ama ilmaha yar ee idaha ah, midka yar waxaa la dhahaa lamb. laba iyo wixii ka badanna waxaa la dhahaa lambs. dabcan aad si kale u taqaanaa laga yaabaa, anigu laakiin waxaan u aqaanaa baraar. nest waa guriga shimbirta ama buulka shimbirta. nests waa buulka laba xabo iyo wixii ka badan ay ukunta dhigato. pen waa hal qalina, pens waa labo iyo wixii ka badan. photo hal xabo sawira, photos labo iyo wixii ka badan. waa garanay. shirt waa hal xabo shaatiya, shirts waa labo iyo wixii ka badan iyaguna. waa garanay. spoon hal qaado, spoons labo iyo wixii ka badan. marka sawirkan waxaan usoo qaadanay in xitaa qofka bilowgii marka uu arko uu fahmi karo qoraal ahaan, dhawaaq ahaan iyo xitaa muuqaal ahaanba. wax badan oo qalabka yaryarka iyo sawiraantana insha Allah waa soo kordhin doonaa. ha laga faa'iidaysto. qof walbana waxaan leeyahay saaxiibkaaga kala gaarsii. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.